بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن داود يال qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina hayso waxa uu dooran madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay xubno ka soo jeeda beelaha galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo ka baxay Dhuusamareeb ra'iisul wasaare Khayre oo amar ku bixiyay in la soo xiro madaxweyne Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo garab istaagay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in Dhuusamareeb ay ku hareen laba kooxood iyo qaar ka mid ah ciidamadii dadka ku laayay magaalada Gaalkacyo oo la qabtay wararka dibadda warbaahinta isha wararkeedina hayso waxa uu dooran wararkii ugu dambeeyay ee qalaasaha iyo afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay gudaha Itoobiya hagaag daawadayaal intaasi waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka ugu darkaroon ku soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilowno warkeena daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacado ka hor la kulmay xildhibaano iyo waxgarad ka soo jeeda galmudug iyo Puntland waxaana la sheegay in ay dawladdiisa ka go'an tahay in doorasho lagu qabto galmudug isagoo ka hadlaya galmudug waxa uu yiri dawladda federaalka ee Soomaaliya talo kasta way qaadanaysaa laakiin marnaba ma ogolaanayso in Xaaf madaxweyne ka sii hado galmudug hadalka ka soo yaray Farmaajo ayaa cadeen u ah in ujeedada laga leeyahay galmudug ay salka ku hayso wax afka qalaad lagu yiraahdo regime change ama la bedelo madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf laguna bedelo mid uu isaga wato mid ka mid ah dadka la kulmay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay shabakada isha wararka ayaa sheegay in Farmaajo ay ka go'an tahay in uu ka taqaluso Xaaf hadii uusan ka taqalusin aqli waxa uu isku dayaa in uu dilo ama soo xiro ninkan oo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo ayaa yiri kooxda al-sunna wal jamaa waa ajaran yihiin hadii moodeen Farmaajo iyagu uu arko saaxiib waxa uu hadalkiisa ku daray ninkan hadda soo aragnay waa nin caqdad ku jirto kana go'an tahay in uu ka aarsado beelaha galmudug waxa uu intaas ku daray hadii xataa Xaaf aqbalo xujooyinka la hordhigay kama harayaan waa ay dalka ka ceeriyaan ama ay soo xiraan Farmaajo ayaa u muuqday in uu ku guuleystay in beelaha Habargadir oo uu rumaysan yahay inay ka dambeysay kacdoonkii lagu riday Maxamed Siyaad uu maanta bahdil ku sameynayo iyagiina ay u kala dhuumanayaan aragtida Farmaajo ayaa rumaysan ceerinta madaxweyne Xaaf ay soo dedejinayso qorshaha uu ku ceerin karo Axmed Maxamed Islaam Madoobe dalka intiisa badanna uu gacanta ku dhigi karo madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa wararka aanu Dhuusamareeb ka helayna ay sheegayaan in uu ka baxay magaalada Dhuusamareeb isagoo dhanka Gaalkacyo uga baxay safar dhinaca wadada ah lama oga in uu ku hakan doono Cadaado iyo Godin Labe madaxweyne Xaaf ayaa intii uu ku sugnaa Dhuusamareeb waxa uu diiday inuu la kulmo wafdiga ka socday dowladda dhexe ee uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya la hadda wax war ah kama soo bixin madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ku aadan ka bixitaankiisa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyadoo duleedka waqooyi ee magaalada Dhuusamareeb ay ku sugan yihiin ciidamo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda galmudug oo galinkii hore ee shalay soo gaaray deegaanka Godin Labe ee gobolka Galgaduud dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa la sheegay inuu garab istaag u muujiyay madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf sida ay waraadiyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan madaxtooyada galmudug ay xaqiijiyeen warar hoose oo heshay isha wararka ayaa sheegaya in Axmed Ducaale Geele Xaaf uu la xiriiray safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya isagoo ka dalbaday in beesha caalamka ay soo fargeliso xaaladda qasan ee galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu yaabaa inuu Dhuusamareeb tago si uu wada hadalka ugu biiro maadaama al-sunna ku guuldareysatay inay Xaaf ku qanciso inuu aqbalo dalabka dowladda dhexe ee Soomaaliya dhinaca kale ciidamo wata gaadiid dagaal oo hogaaminaya wasiirka maaliyadda ee galmudug Saciid Siyaad ayaa shalay lagu celiyay deegaanka Godin Labe waxaana la sheegay inay saaka yimaadeen deegaanka Mareerguur oo qiyaastii 28 kiiloomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb waxayna wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno deegaankaas ay sheegaan in ciidamada watay wasiirku ay dib ugu laabteen deegaanka Godin Labe waa hagaag daawadayaal wali waxaan ku jirnaa wararka galmudug dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa la sheegay inuu amar ku bixiyay in la soo xiro Axmed Ducaale Geele Xaaf sida ay waraadiyo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay xaqiijiyeen isha wararka waxa la sheegay in amar uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ah in la soo xiro madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf waxaana laba diyaaradood oo loo diyaariyay ciidanka danab ee fadhigoodu yahay Beledowle inay tagaan Dhuusamareeb oo ay soo xiraan Axmed Ducaale Geele Xaaf la waraadiyo ayaa inta ku daray in uu hadda socdo muran xoogan oo ay u dhaxeeya Farmaajo iyo Khayre taas oo ay sheegayaan in Farmaajo uu ka cabsi qabo in dagaal baan uu ka dhaco Muqdisho taasi oo naftiisa halis gelin karta waxa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb saansaan dagaal iyadoo ciidamo tiro badan oo taageersan Xaaf ilaa shalay iyo xalay ay soo buux dhaafiyeen duleedka magaalada Dhuusamareeb wixii ka soo kordhay galmudug waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena kale ee fadlan rukumo channelkeena oo subscribe dheh waa tahay wali daawadayaal waxa daawaneysaan wararka warbaahinta
isha wararka. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in laba kooxood ay isugu soo hareen Dhuusamareeb. xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa sheegay in madaxweyne Xaafi Galmudug ay isaga tageen magaalada Dhuusamareeb. Xaafi Galmudug waa ka wada bixeen waxaana isugu soo haray laba kooxood ee Filla Soomaaliya iyo Al-Sunna wal Jamaaca yiri xildhibaan Fiqi. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu Fiqi ku tilmaamay wafdiga wasiir Sabriye baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibo oo albaabka hore ee goobta lagu weerarayo lagu furto kadibna kooxo qamaam oo hubeysan ay goobta soo galaan sida safarka ra'iisul wasaare Khayre ee la sheegay inuu ku tagayo Dhuusamareeb. Fiqi ayaa ku dooday in Xaaf uu kaligiis ahaa Galmudug isla markaana wada hadalka dowladda federaalka iyo kooxda Al-Sunna aysan ka dhignayn midda Galmudug arrimaheeda quseeya sidoo hadalku u dhigay. siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda beelaha Habargidir ayaa intooda badan taageeray Xaaf oo hore khilaaf uga soo tagay Cadaado lana midoobay kooxda Al-Sunna ee fadhigooda yahay Dhuusamareeb waxaana hadda u muuqataa in Al-Sunna kaligeed ay ku soo hartay magaalada. ugu dambeyntiina qaar kamid ah ciidamada dadka ku laayay magaalada Gaalkacyo ayaa la qabtay. wararka aan ku helayno koonfurta magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaa sheegaya in gacanta lagu soo dhigay qaar kamid ah ciidamadii dhawaan magaaladaas ku laayay dadka rayidka ahaa. 5 kamid ah ciidamada dadka ku laayay magaalada Gaalkacyo xabsiga la dhigay waxaana wali baxsad ku jira 5 askari oo kale oo dilkaas ku lug lahaa halka hore loo xiray askari ka tirsanaa booliiska Galmudug oo isaguna ku lug lahaa dilkaas. qabashada ciidamadan lagu tuhmiyay inay ka dambeeyeen dadkii lagu laayay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay inay ku timid dadaalo ay sameeyeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan Gaalkacyo. xildhibaanada ayaa kala hadlay waxgaradka magaalada Gaalkacyo sidii loo soo qaban lahaa sharcigana loo horkeeni lahaa askartii ka dambeysay dilka dad ka badan 10 qofood oo ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. ciidamo hubeysan ayaa magaalada Gaalkacyo ku laayay in ka badan 10 ruux oo badankood ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dilkan ayaa ka dhashay sargaal ciidan oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo kaas oo kamid ah saraakiisha nabad sugidda ee Soomaaliya. halka warkaas daawadayaal wadin kaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka markana wararka dibadda. xiisadda dalka Ethiopia ayaa la sheegayaa in wali ay taagan tahay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya isku day afgambiyo oo ka dhacay gobolka Amxaarada Ethiopia markii ciidamada hubeysan ay isku dayeen in la wareegaan hoggaanka maamulkaas. rasaas ayaa la maqlay waxaana laga maqlay magaalada Bahardar waxaana la sheegay in ay isku horimaad u dhexmaray ciidamada iyo koox hubeysan oo waday afgambiga. afayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Neguza ayaa u sheegay telefishinka qaranka Ethiopia in isku day afgambi guuldareystay uu ka dhacay magaalada Bahardar ee gobolka Amxaarada. waxa uu sheegay inay socdaan dadaalo la doonayay in lagu soo qabto dadkii ka dambeeyay afgambiga inkastoo aan wali cadeen cid ka dambeysa mana jirin koox sheegatay isku dayga afgambiga. dad kala duwan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in rasaas culus laga maqlay saacado badan magaalada Bahardar gudaheeda. xaaladda waxay ahayd mid kacsan oo aan kala cadeen sida ay wax u socdeen. warar ayaa sheegay in saacadihii hore mas'uuliyiin ka tirsan Ethiopia ay wax soo gaareen. hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in uu geeriyooday taliyihii guud ee ciidamada Ethiopia madaxweynihii ismaamulka Amxaarada ee Ethiopia iyo xubno kale oo la sheegay in waxyeello ay soo gaartay. waxaa sidoo kale kamid ah la taliyaha madaxweynihii gobolka Amxaarada iyadoo sidoo kale xabsi guri la dhigay saraakiil uu kamid yahay taliyihii sirdoonka Ethiopia. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa la kulmay caqabado ugu imaanaya siyaasadda gudaha ee dalkaasi gaar ahaan nidaamkii hore ee talada u hayay TPLF. warkii oo daawada xilligan kaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa warkan warka xigeenta dib u kulmi doona sidaas nabadgelyo.